Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta waxaan qaadanaynaa casharadii taxanaha ahaa ee lagu baranayay how to name the structure of alkanes, sidee loo magacaabaa qaab dhismeedka alkaneska qaybtiisa saddexaad. Hore waxaan usoo qaadanay qaybtii koowaad oo ahayd larger longest chain name. Waxaa noogu xigtay lowest number rule. Maanta waxaan qaadanaynaa larger number of side chain rule. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay structure lagu siiyey. Structurekaas wuxuu yeeshay dhowr longest chain. Dhowr longest chain uu yeeshay markaan ku leeyahay ujeedada laga leeyahay waxaa waaye isku number ay noqdeen, tirada kaarboonada isaga mid ay noqdeen. Mid aad doorataa weyda marka. Tusaale 2 ama 3 silsiladood ayaa keeneen tiro kaarboonada oo isku mid ah. Kee dooranaysaa marka? Cashirkeena intaas uu ku saabsan yahay. Waxaad dooranaysaa midka uu ku dhegan yahay larger number of side chain. Midka brancheska badan ama side chainka badan ama substituent-ga badan ayaa dooranaysaa. Iska doora ma aha. Okay, aan bilowno. Example-ka ugu horeeya structure-kan la siiyey. Structure-kan aan fiirin horto imise qaab ayaan u dooran karnaa longest chain. Kadibna aan ka xulano midda ugu dheer. Marka ugu horeysa ku bilaabaan ku dhahay straight-ka ku bilaaw. Meeqa kaarboon aan haysanaa? 1 2 3 4 5 6. Hay tan aan ku xijino qalooca ah 1 2 3 4 5 6. Midaan aan ku xijino waa iska 4 way gaaban tahay. Okay, tan aan ku xijino 1 2 3 4 5 6. sidaan 6 ay noqotay, sidaana 6 ay noqotay, sidaana 6 ay noqotay, sidaan meeqay noqonay 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 saddex meelood lexleexan haysanaa. saddexda lexleexda ah waxaan rabnaa inaan qaadano midda iska leh number of side chain-ka badan, midda ay ku dhegan yihiin laamo badan, branches badan. Okay, ugu horeyn aan doorano midaan straight-ka ah. Aan box gelino. Banaanka maxaa usoo baxay imise branch? Halkan methyl group ama CH3. Intana waa ethyl. Intana waa methyl. waa 3 branches. Okay, aan isku dayno inaan qaab kaleeto u qaadano. Okay, qaabkaanan u qaadanaynaa. Kan waa branch. Waxaa lagu magacaabaa isoprobyle. Isoprobyle. Kanna waa methyl. Intana waa isku kaarboono 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Marka kuwan waxay leeyihiin 2 branches. Markaan oo kale waxaa lagaa rabaa inaad doorato tan structure-kan ama qaabkan inaad u qaadato longest chain ayaa correct ah. Sababtoo ah wuxuu leeyahay maximum number of side chains ayuu leeyahay. Kan waa incorrect. Marka sidaa u jeedaan longest chain-ka markii la dooranayo iska dooro ma aha. Xeerarkaas ayaa loo raacayaa doorashadeeda.
okay maadaama xeerkan uu yaryahay waxaan raacinaynaa xeerka afraad. labadan structure ayaa nala siiyey. xeerkan waa xeerka afraad, waxaa la yihahdaa lowest set of locant rule. ereygan locanti waa meesha ama numberka kaarboonka uu ku dhegan yahay. kaarboonka lagu dhegan yahay numberkiisa la yihahdaa locanti. xeerkan waxaa loo isticmaalaa markii aad haysatid structure ay ku dhegan yihiin baranjiyo badan. dhinaca aad ka bilaabaysid numberiska, ma intaa ka bilaabay mise intaa ka bilaabay mise intaa ka bilaabay mise intaa ka bilaabaysaa. tirada numberiska ay ku dhegan yihiin baranjigaas markii la isu geeyo waa inay ka yaraataan numberiska ay ku dhegan yihiin kuwan kaleto. calaa ayi xaal isugeynta tirada numberiska baranjiska kii yar labadan structure ayaa la qaadanayaa marka aad doorato longest chain kabacdi. longest chain aad dooranaya waa nambarinaysaa. tirada nambarada ay ku dhegan yihiin kuwan ayaa isu geynaysaa, kuwaanna waa isu geynaysaa. kii yaraada ayaa qaadanaysaa. markaas kasoo qaad structurekan qaabkan ayaan u qaadanay longest chain. intana waa kasoo tirinay left to right, left to right, left to right ayaan u nambarinay. maxaan helaynaa 2 3 4 5 nambarada lagu dhegan yahay oo dhan waa qoraynaa, kadibna waa isu geynaynaa. inta kaarboonka labaad waa lagu dhegan yahay 2 times aa lagu dhegan yahay. sidaas daraadeed waa soo baranay kaarboonka haddii 2 jeer lagu dhegan yahay nambarkiisa 2 jeeraa la qora. marka inta waxaan haysanaa 2 lagu daray 2. 3 waa lagu dhegan yahay, 3 iigu dar. 4na waa lagu dhegan yahay, iigu dar. isu gee meeqay noqotay 2 2 ku dar 4, 4 3 ku dar 7, 7 4 ku dar 11. totalkoodu waa no 11. markaasaan u tirino isla structurekii aan qaadano. laakiin markaan aan dhahno right to left intaan kasoo bilaabaynaa tirada. okay aan isu geyna tirooyinka. 2 waa lagu dhegan yahay, 3 waa lagu dhegan yahay, 4 2 times aa lagu dhegan yahay. saas daraadeed 4ta 2 jeer ku dar, 2 3 ku dar 5, 5 4 ku dar 9, 9 4 ku darna waa 13. marka in this case the sum of the locantes is 11. in this case the sum of the locantes is 13. marka midkan ayaa ah lowest set of locantes. kan ayaa correct ah, kan waa incorrect. waxaan ka qaadanaynaa example labaad.
isla structurekaas aan ku qorno hoos. Okay, hadda aan doorano longest chain. Longest chain aan doorano. sidaan haddii aan u doorano 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 straightka aan ka soo qaadano. kadibna aan nambarino. annagoo ka soo qaadanayna inaan u nambarinayna from left to right. Left to right maxaa helaynaa 1 2 3 4 5. number 2 jeeraa lagu dhegan yahay, therefore 2 jeeraad isku daraysaa, waxaa kusii daraysaa 4 waa lagu dhegan yahay, meel kaloo lagu dhegan yahay ma jiro. isu gee 2 ugee 4 4 4 ugee 8. the sum of the locantis waxaan haysanaa 8. isla structurekii qaabkii aan u dooranay u dooro, laakiin in this case ka bilaabo bidix, ka bilaabo midig, bidix u soco. right to left. 2 waa lagu dhegan yahay, 4na 2 jeeraa lagu dhegan yahay. 2 4 ku dar 6, 6 4 ku darna 10. saa u jeedaan 2 structure waay. haddana waa inaad doorataa, sharcigu wuxuu ku leeyahay dooro midda kore, sababtoo ah iyada ayaa iska leh lowest set of locantis. iyada ayaa iska leh nambarada lagu dhegan yahay. haddii la isu geeyey, tan kore ayaa yar waa 8, tan hoose waa 10, therefore tan waa correct, tanna waa incorrect. waxaan ka qaadanaynaa example ugu dambeeya. example-keenu ugu dambeeya kanuu noo noqonayaa. isla asaga hoos aan ku qorano. aan doorano longest chain. longest chainkeena wuu muuqdaa, waa kan silsiladaana ugu dheer. okay, aan ka tirino from left to right.
left to right intaan ka bilaabno numberska 5 numberska lagu dhigan yahay waa 2 iyo 3 isu gee 2 iyo 3 waxaan helnay sum of locantis tirooyinka lagu dhigan yahay waa 5 isu geyntooda isla structure-kii waa ka markaan ka bilaawno midig aan u soo soconno bidix right to left waxaa lagu dhigan yahay 3 iyo 4 sum of locantis waxay noqotay 7 therefore labadan waxaa lowest ah ama lowest sum of locantis waxaa ah midda kore tan ayaa correct ah tanna waa incorrect cashirkeennii maanta oo ku saabsanaa lowest set of locantis rule intaasaan kusoo gebagabaynaynaa waxaa noo dhiman xeerar kale ku xirnow kanaalkan Biochemistry fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe-ka iyo like-ta iyo commentsba ka bixisid sharena aad u tirahdid ardayda kale ee asxaabtaada ah ee sanadkan form 4 ka ah fasalka 12aad si ay uga sii faa'iidaystaan sidaas daraaddeed subscribe-ka iyo share-ka inaad daawato min bilaaw ilaa iyo dhammaad si aad u fahamtid waan kuu rajaynayaa in ilaahay kuu fududeeyo waxbarashada aad baranaysid insha allahu tacaala waa dadaali doonaa sida iigu fiican ayaan idinkuga hagarbixi doonaa sidaad ku baran lahaydeen cilmiga ama maadadan chemistryga inaan ummadda Soomaaliyeed ardaydeeda aan u faa'iideeyo diyaar ayaan la ahay sababtoo ah cilmiga haddii ilaahay ku baray inaad la dhimato waxaa ka fiican in inta nool aad barato intaadan dhiman ka hor insha allahu tacaala waa sadaqaysanaya cilmigayga idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe-ka like-ta comment aad ka soo bixisaan bini aadanan aan waa khaldami karaa meesha aan ku khaldanahay iyo qaabka aa wax u rabtaan kulley casharadan isdaba joogay noqon doonaan waxaa hadda ka dambeeya sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu